subaxnimadii hore ee Saaka waxaa degmada Ibraahim Koodbuur ee xaafadda Jigjigayar ay dawladda hoose ka bilowday howlgal lagu banaynayo wadada isla markaana lagu duminayay meheradaha lagu ganacsaday ku yaala wadada agagaarkeeda sida dukaanada iyo kolayada qaadka hoteelada. howlgalkan ay Saaka ka waday dawladda hoose ee degmada Ibraahim Koodbuur ayaa waxaa soo kormeeray mas'uuliyiinta sarsare ee dawladda hoose. ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur Yuusuf Xuseen Kaahin, agaasimaha bilicda caasimadda Hargeysa Khadar Yuusuf Cali, xoghayaha dawladda hoose Axmed Yoonis Aadan, waxayna fariin wacyigelin caafimaad u direen shacabka ku nool magaalada Hargeysa, waxayna ugu baaqeen in ay qaataan fariinta wasaaradda caafimaadka iyo guddidu ay dirayaan kana fogaadaan goobaha lagu caweeyo ee la iskugu yimaado. annagoo maamulka degmada Ibraahim Koodbuur khaasatan gudoomiyaha degmada Ibraahim Koodbuur hawshan aanu Saaka fulinay waxaanu ka hadlaynay ilaa 24kii bisha 4 gaari oo mikrofoon saaran yihiin ayaa saacad maalintii 2 goor ku noqonaya xaafadda oo lahaa ka diyaar garooba oo laha nadaafadda inta labaad mashkiladda meesha taala waxa weeyaan dadkii horta waxaan uga taagnaanay wadada dadkii waxay doonayaan dawladda hoose inay caayaan iyaguna ay corruption ka soo doontaan wadooyinka looga taag waayo ama mid waddo ku soo jeedo ay u soo doontaan rishaha ama mid xaafadaha dhexdooda ahaatee waxaan uga taagnaanay dadka wadadii wixii wadada loo oran jiray sidii caadiga ahayd waxa wali socda ololayaashii isdaba joog ahaa ee guud ahaan degmooyinka caasimadda intooda badan laga soo fuliyay isla markaana lagu taargetgareynayay meelaha lagu soo ururo sida maqaaxiyaha iyo kolayada jaadka iyo wixii la mid ah illegalka ee wadooyinka xiriirka ku hayay ee bilicda iyo caafimaadka bulshada halista ku ahaa runtii ololuhu Saaka sidii caadiga ahayd 6 subaxnimo bilaabmay ilaa imikana si nabadgelyo ayuu ku soo gaaray halkii loogu talagalo degmada Ibraahim Koodbuur waa shaqo joogto u socotay hadal badan uma baahna habeen iyo maalin walba way socotaa waa maanta waa maalintii saddexaad ay socoto uufintuna waa maalintii habeenkii saddexaad ay socotay hadal badan uma baahna waxaa laba kalmadood unbaa looga baahan yahay dadweynaha lagu yiraahdo waxaan dadweynaha leenahay mar haddii kiiskii koowaad iyo kii labaadba la arkay iyo kiisas kale oo imaka iyagana baadhis lagu hayo oo ka socda Saylac iyo Looyacado waxaan idin sheegaynaa mar haddii la arkay waxaa qura loo baahan yahay cudurkan coronavirus laga hortagi karo waa feejignaan isumaati kooru macmuulno isu soo dhawaanteenu kala durkino waxa weeye sida qura laga hortagi karo waa sida marka dadweynaha caasimadda waxaan u sheegaynaa 3 qodob ciyaaraha inaynu joojino meelaha ururka inaynu joojino Allahumma salli ala Muhammad meelaha lagu qaylayo inaynu yarayno la kala durko maqaaxiya la fadhiisanayn la kala durko qofkii aan shaqo muhiim haynin inuu aqalkiisa iska fadhiyo oo aanu suuqa u soo bixin suuqa qof ay dani keentay mooyee inaan suuqyadii iyo iska fadhiga maqaaxiya aynu yarayno waxa weeye inaynu kantaroolo socodkeena oo aynu guryaheena fadhinaaba muhiim ah. sida oo kale waxaa iyaguna fariin caafimaad u diray shacabweynaha ku nool magaalada Hargeysa. duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sooteelko iyo maayir ku-xigeenka Cabdicasiis Maxamuud Xaashi waxaan wali ku jirnaa ololihii ballaarinta iyo hagaajinta caasimadda ololahana waxaan leenahay dadka nadaafadiina ilaaliya qof walba nadaafadaada ilaali gaadiidka la raacay dadweynahana waxaan leenahay barabagasta iyo gaadiidka yaryar iyo sida loo raacayo qof iyo laba iyo ka badanin nidaam baan soo dejin doonaa basaska nidaam baan soo dejin doonaa hadii ilaahayda ka guddi ahaan waxaan leeyahay dadweynuhu hay ilaaliyaan nadaafadana kor u qaadaan waa maalintii saddexaad ee ololaha iyo habeenkii shanaad oo isagana ololaha oo sahibadaha lagu nadiifinayay kolayada maalin walba iska socon doontaa si joogto ah in kolayada la qaado halkan waxa labaadan uga hadlaynaa oo ku sameynaya inaan iyagana ka shaqeynayno biyo mareenadii caasimadda si loo ballaariyo iyadoo halkan shubabkan aad arkaysaani ay noqon doonto wadadan inaanu goyno oo nu gelino maadaama sida arkaysaan tii hore ku jirtay ay aad u yarayd ay halkana biyo istaagi jireen goobaha ugu istaaga badan ay ka mid tahay in iyagana biyo mareenadii laga dhigo. Nicimo Cabdiraxmaan Yuusuf, Sam News TV, magaalada Hargeysa.